waxaa xarunta FAO ka furmay shirkii 36aad shirkaas looga hadlayo sidii loo quudin lahaa dadweynaha ku nool adduunka waxaana ka soo qayb galeen wafuudi ka kala socda dunida dhan 20 sano kadib waa markii ugu horeysay mas'uuliyiin ka socota dawladda Soomaaliya ay ka soo qayb galeen shirkan halkan waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha dawladda midnimada qaranka Soomaaliya Mudan Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaaraha dawladda midnimada qaranka ee Soomaaliya Mudan Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu ka qayb galay shirweynaha hay'adda u qaybsan cuntada iyo beeraha FAO oo ku saabsan la dagaalanka gaajada adduunka waana markii ugu horeysay tan iyo burburkii Soomaaliya oo wafdi heer sare ah ka qayb galo shir madaxeed ay soo diyaarisay hay'adaha FAO shirweynaha FAO ee ka furmay magaalada Roma ee dalka Talyaaniga waxaa mas'uuliintii ka hadashay ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha dawladda Talyaaniga Silvio Berlusconi madaxweynaha Liibiya Muammar Gaddafi oo asagana ka hadlay arrimaha Afrika madaxweynaha Masar Hosni Mubarak madaxweynaha Brazil Lula iyo madax fara badan oo aan halkan ku soo koobi karin waxaa ra'iisul wasaaraha Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu shirka ka jeediyay khudbad uga hadlaya xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliya of how far away we are in meeting early commitments to eradicate hunger, malnutrition, as well as improving food security situation, particularly in Somalia. Madam Chair, Excellencies, ladies and gentlemen, the people of Somalia continue to suffer from the current food insecurity and malnutrition, mainly due to the continued civil conflict. However, the Somali government now is paying all its efforts to improve security so we could provide the enabling environment for food production and the eradication of hunger. Let me take this opportunity to make an urgent appeal towards the international community that the Somali government and the Somali people are seeking your support to overcome all the constraints that have held our country behind, including violent conflict, lack of infrastructure, poor water resource management, and weak private sector. The Somali government wishes to develop, with the assistance of FAO and other potential development partners, a program for food security, with the main objective to reduce and eliminate the specter of famine, malnutrition, food insecurity, in line with the objective of World Summit on Food Security and the Millennium Development Goal. In conclusion, Somalia wishes to express its readiness and willingness to work with the FAO, international community, and others to work on a program that will secure the necessary momentum for a successful implementation of the proposed strategies aimed at ensuring food security. These are challenging times for most developing countries, and we must take all the necessary steps to reverse the history of food insecurity. I thank you for your attention. intii uu socday shirweynaha FAO ra'iisul wasaaraha dawladda midnimada qaranka ee Soomaaliya Mudan Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu kulan la yeeshay dhowr mas'uul waxaa ka mid ahaa fadhi gaar ah oo uu la qaatay wafdi ka socda dalka Spain oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda Miguel Angel Moratinos Hello, Prime Minister. Excellent. How are you? How are you? Good. How's it going? Good. We talk from the good to see you, Dili. Good to see you. How are you? How are you doing? How are you doing? Good. Environment, how are you doing? And good to see you. Good to see you. Yeah, we're good, Dili. Okay. How are you? Fine. Well, we have to discuss a little bit. Yes. If you don't mind, I would prefer with the ministers, one or two from your side. Yes. Okay. Then we expand the delegation. No? Okay. So the ambassador and the minister will. Okay. Okay. Please. Okay. Okay. waxaa kaloo Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu xarunta FAO kula kulmay agaasimaha guud ee hay'adaha FAO Jacques Diffus ugu dambeyntii ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke
wuxuu la kulmay xogayaha guud ee jaamacadda carabta. ka qaybgalka shirweynaha iyo kulamada u yeeshay ra'iisul wasaare cumar cabdirashiid ayaan waxaan ka weydiiyey sida asalaamu calaykum. marka hore waxaan kusoo dhaynaa magaalada Roma. waxaana sheegtaa shirka aad soo qayb gashay oo luqadda magaalada Roma soo dhacay iyo qodobada mudanka oo lagu hadlay. runtii shirkan waxa uu ahaa shir looga hadlayay sidii dunida isku filaan u gaari lahayd 2050. hadafkaas oo hadda ka hor la dejiyey waxay ahayd in isku waco dal kasta uu ka warbixiyo xaalka meeshuu marayo iyo inay tahay waqtigii la qabtay waqti suuragal ah in la gaaro isku filaanshahaas. runtii waddamadoo dhan waxay ka warbixiyeen xalqooda meeshuu ahaa. annagu runtii waa ka warbixinay xaaladdeena meeshay tahay in maanta amni darro darteed hadafkaasi uusan dhici karin ay tahay waxaan riyo ahaan ku riyoonayno. hase ahaatee aan qorsheynayno in haddii amnigaas dowladda laga talaabsado sidii runtii dadka loogu heli lahaa xal in maaragtay gaajada kaga baxaan. waxaan meesha ka sheegna ugu weynayna waxay ahayd in maanta kaalmo cunto lagu sii aadan gaajo uga bixi karin wax soo saar looga bixi karo. waa markii ugu horeysay in 20 sano kadib soo qayb galay mas'uul sare ee dowladda Soomaaliya shirkan. dareenkaas uu yahay runtii waxay la tahay ahmiyad gaar ah ayaan siinayna annaga. Soomaaliya dhibaatada haysataa runtii ugu weyn ma aha dhibaato amni kaliya sida adduunka u dhigayaan. waa noloshii ayaa luntay. dhalinyaro badan maanta aan waxba haysan ayaa waxay ku qasbayeen inay qoryo qaataan inay dagaalaan si u helaan $50 ama $100 bishii. marka waxa weeye runtii ahmiyadda noocaan oo kaleeta shirka noocaan oo kaleeta waa muhiim. Soomaaliya muhiim u yihiin sababtoo ah Soomaaliya arrimaha haysta badanaa waxaa lagu tarjumaa inay tahay burcadbadeed iyo argagixis la dagaal. laakiin waxaan dhan keenay aasaaska waa nolol darro oo dhaqaale xumo. marka waxa alla wixii waddanka noloshiisa dhaqaalihiisa kusoo korsanaya annagoo ahmiyaddeena masaalisa waana ku faraxsanahay runtii muddadaas kadib inaan maanta maaragtay aan ka qayb galno shirka noocaan ah. ma kula tahay in Soomaalida shirka ay ka faa'iidi karto si aad iyo aad uga faa'iideysaa runtii si multilateral yacni hay-adahan adduunka UN-ka iyagana uga faa'iideysaa si dowlad ahna waa uga faa'iideysaa. runtii hadda waxyaabaha ugu weyn oo aan runtii rabnay inaan ka gadno dadkii aan u imaano wuxuu ahaa in maadaama WFP ay kaalmo bixiso kaalmadaasna mararka qaarkood ay xataa dhibaato ku tahay dadkii wax soo saaraya waddanka gudihiisa in WFP ay u bedesho in cuntada ay soo gadanayso dowladda ka soo gadayso inay ka gadato beeraleydina si waa mare wax soo saarka loo dhiirageliyo. waa marka labaad ee si wixii dadka anaga aan beeranay ay noqdaan waxaan isticmaalayna. gordhow waxaa ka jiray dadka Soomaaliya muran ay ku saabsan hay'adaha samafalka ee gargaarka dalka Soomaaliya. maxaa lagu xaliyay arrimahaas? runtii arrimaha gargaarka samafalka annagu waa encourage gareynaa. waan maaragtay dhiirigelinaa inay runtii meelaha dadka dhibaataysan tagaan. runtii waa saacidnaa wax kastaan sameynaa. waa jiraan in shabaabku ay ka soo saareen meelo badan ay ka shaqeynayeen hay'adahaas. laakiin waxay la tahay annagu inta haatan gacanta Soomaaliya dowladda ku jirtana way ka shaqeeyaan. waxaan rajaynaynaa inta kalena dhaqso inay shaqo uga bilaabaan. ma weydiisateen muddada oo shirka jiray wax dhaqaale ah oo kaalmo ah FAO kaliya inaan warsanay waxaan warsanay xataa dowladda gaar aan aragnay. waxaan arkay jaamacadda carabta ninkii u joogay halka Caamir Muuse hanka haysta. waxaan isaalnay dowladda gaar Spain Talyaaniga. waxaan runtii kala hadlay mashruucyo dhowr ah. waxay la tahay in dowladda Spain hadda dhowr dhaqaale 2 milyan iyo meel ah iyo meel 1 milyan barax mashruucyo ah ay ugu deeqday in kalluunka beeraha iyo xoolaha intaba maaragtay la geliyo in runtii ay ugu deeqdeen lacag ilaa 5 milyan oo euro ah in raashin la geliyo. laakiin ay tahay annaga dowlad ahaana inaan runtii dejinno sida raashinkaas loo isticmaalay. taasoo aan uga danaynahay in maanta jidadkii sidii loo dhisi lahaa iyo yacni eerboorradii sidii loo dhisi lahaa aan u isticmaalno raashinkaas dileeda. aad baad basan tahay. ورئيس وزراء الدولة الصومالية مدن عمر عبد الرشيد سماركي وانا انت محمد روبرتو